Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan kusoo guda jirnay zakada. Afarta nooc ee hantida ee zakada ay waajibku ku tahay in laga qaado waxaa ugu horeeya xoolaha sida geela, lo'-da iyo ariga. Hantida labaad ee zakada laga qaado waxay ahayd waxa dhulka ka soo baxa oo isugu jira miraha iyo badarka iyo macdanta iyo duugaaleedka. midda saddexaad waxay ahayd dahabka iyo qalinka. midda afaraad curuudu tijaara, qolada la yidhaahdo gedisleyda ama ganacsatada. Haddii aan ku bilaabno xoolaha sida geela, lo'-da iyo ariga, shuruudaha zakada ay ugu waajibayso xoolaha. Shuruudihii guud ee zakada oo ahaa inuu qofka islaam yahay, inuu xor yahay, inuu nisaab haysto iyo in milkiyad uu u leeyahay hantida iyo in sanad ay ka soo wareegato ayaa waxaa lagu biirinayaa 2 shardi oo kale. midka koowaad waa in xooluhu daaqaan cooska daaqsinka sanadka intiisa badan, waxaana lagu magacaabaa xoolo foofa. balse qofka leh haddii calafka ama cooska asaga uu qarash ku bixiyo sanadka intiisa badan, markaas zaka lagama qaadayo oo zaka lagama rabo. shardiga labaad ee shuruudaha lagu biirinayo xoolaha, ujeedka xoolaha loo dhaqaalaysanayo waa in ay tahay si looga helo caano iyo ubad. balse haddii lagu shaqaysto oo ama beere ay falaan ama la rarto, markaasoo kale wax zaka waajibku ma aha. shuruudihii 5 ahaa ee zakada ay wada lahaayeen 4 qayb oo hantida laga qaado waxaa lagu biirinayaa oo xoolaha ayaga dheeraad u ah 2 shardi oo ah in xooluhu ay foofaan oo cooska ay daaqaan iyo in ujeedka loo dhaqaalaysanayo ay tahay in la helo caanahooda iyo ubadkooda. 4 nooc ee hantida ay zakada waajibku ku tahay waxaa ugu horeeya xoolaha. xoolaha waxay isugu jiraan geela, lo'-da iyo ariga. haddii aan ku bilaawno geela, nisaabkiisa ama tirada ugu yar ee zaka looga qaadi karo waa 5 neef oo geela. 5 ilaa iyo 9 neef oo geela waxaa la bixinayaa 1 ri. 10 ilaa iyo 14 waxaa la bixinayaa 2 ri. 15 ilaa iyo 19 waxaa la bixinayaa 3 ri. 20 ilaa iyo 24 waxaa la bixinayaa 4 ri. 25 haddii uu gaaro geela tiradiisa ilaa 35 waxaa la bixinayaa nirig 1 jir ah. ariga waa uu dhammaaday, geel ayaa bilaabanaya in la bixiyo haddii 25 neef uu geela gaaro. 25 ilaa iyo 35 waxaa la bixinayaa nirig 1 jir ah bintu makhaad. 36 ilaa 45 waxaa la bixinayaa nirig 2 jir ah bintu labuun. 46 ilaa iyo 60 waxaa la bixinayaa qaalin 3 jir ah, xiqatun baruuqatuljamal, qaalin awr mudatay. 61 ilaa iyo 75 waxaa la bixinayaa 1 4 jir ah, waa jadaca mid ilka dhacsatay. 46 ilaa iyo 90 waxaa la bixinayaa 2 nirgood oo midiiba 2 jir ah. 91 ilaa iyo 120 neef oo geela waxaa la bixinayaa 2 qaalmood oo midiiba 3 jir ah, xiqatun baruuqatuljamal, qaalin awr mudatay. haddii geela 120 neef uu ka bato waxaa la samayn karaa 2 si. in 40 loo dhiga tirada geela oo loo qaybiyo 40 walbana waxaa laga bixinayaa markaas nirig 2 jir ah bintu labuun. sida kaloo la samayn karo waxay tahay in 50 loo dhigo geela tiradiisa, 50 walbana waxaa laga bixinayaa qaalin 3 jir ah, waa xiqatun baruuqatuljamal, qaalin awr mudatay. qaybtan in sidaan loo qaybiyo zakada waxaa sameeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ayaa sidaan u qaybiyey in xoolaha marba heerkan ama tirada ay gaaraan in inta laga bixinayo rasuulkaa sheegay sala allahu calayhi wasalam. haddii aan eegno lo'-da nisaabkeeda ama tirada ugu yar ee zaka looga qaadi karo waa 30 neef. 30 ilaa iyo 39 waxaa la bixinayaa weyl ama dibi yar oo 1 jir ah. haddii ay lo'-du gaarto 40 ilaa iyo 59 waxaa la bixinayaa neef 2 jir ah. lo'-du haddii ay badato
waxaa la samayn karaa laba si. soddon ayaa loo qaybin karaa tirada lo-da. 30 walbana waxaa laga bixinayaa weyl ama weyl dibi oo 1 jir ah. haddii kale waxaa la samayn karaa 40 ayaa loo qaybinayaa tirada lo-da. 40 walbana waxaa laga bixinayaa neef 2 jir ah oo dhidig ah. ariga asaga nisaabkiisa ama tirada ugu yar ee zaka looga qaadi karo waa 40 neef. 40 ilaa iyo 120 waxaa la bixinayaa 1 neef oo ari ah. 121 ilaa iyo 200 waxaa la bixinayaa 2 neef. 201 ilaa iyo 300 waxaa la bixinayaa 3 neef. haddii 300 uu ka bato waxaa la sameynayaa 100 ayaa loo dhigayaa. 100 neef walbo waxaa laga bixinayaa 1 neef. Soomaalidu waxay u taqaan geela markii 100 neef uu gaaro waxaa la yiraahdaa kadin geela. lo-duna markay 100 neef oo lo markay gaarto waxaa loo yaqaanaa ul lo ah. arigu markii 100 neef uu gaaro Soomaalidu waxay u taqaan tira ari ah.